بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii gaarka ah ee diiradda farcade oo aynu toddobaadkan uga hadli doono wareysi gaar ah aynu kula yeelan doono alfanaan Abshir Gaarane Axmed oo kamid ah fanaaniinta ku nool magaalada Muqdisho kuwada heesaha dabacsan soo gudbiya fanaanka waxaanu wax ka weydiin doonaa si guud waxa uu wareysigan ku saabsan yahay noloshiisa من مقدشو إلى قبل كجدو يدمان حالة دي سفنات يو حالة كلا أو كجدا من نلشي سوى جهي أنتو وكسرنا مجال مقدشة أيين ورئيسي عن ديرة كسار الدونا وأنهم هذا علنا يا أبشر واحد كسر وقتها سيجارة بيجكية كاره هن برامج كديرة فرعدي أديات وكل وهاي دمان بيجكاجي أصحابتك حرنا والسلام يا دي أنا وأنا كقاعد ما سمعت وكما أبشر Gaarane أحمد أبشر Gaarane أحمد وأنا كان كورة فردية Soomaali baan ahay waxaan ahay dhalinyaro waxaan ahay dadka fanka ma dhihi karo nin fanaan oo heer dheer ka gaaray fankaan ahay laakiin dhalinyarada maxaan ku yiraahdaa fanka jecel iskuna dayay inay heesaan xoogaan oo yara socdeen baan horta kamid ahay Abshir Gaarane waa fanaan mar waa macallin mar waa maxaan ku iraahdaa iska social waaye shaqooyin badan oo kala duwan oo fanka ku saabsanaato dhanka macallinimada iskoolka ku saabsanaato waan soo maray degmo waan ka soo shaqeeyay nolol ahaan waxaan ku dhashay gobolka Gedo sanadu markay ahayd adu 1995 baan maxaan ku raahdaa hadda ee qoran waa laga yaabaa inaan ka weynahay laakiin 1995 adiga 14 January waxaan ku dhashay degmada Baardheere ee ka tirsan gobolka Gedo kuma weynaan oo kuma barbaarin oo kuma ana aqliyeysan oo yar adiga aanan daadi sanadkaba gaarin baa laga soo waday waxaan socod ku soo maray Kismaayo wali anoo yar oo aanan maalmo ad wax yar oo aan soo joognay kadib Muqdisho barosima soo dhigtay ku koray ku weynaaday dugsigayga quraanka aan ku dhigtay Muqdisho adiga gobolka Banaadir waa iska baaxad weyn yahay degmo la yiraahdo Wadajir deegaan ahaan hoos tagta Madiina baan ku soo barbaaray ku soo koray ilaa hadana deganahay dugsigayga quraanka waxaan uga baxay Madiina iskoolkaygii hoose dhexe sare Madiina Wadajir jaamacadeedii sidoo kale jaamacadda waxay ku tahay degmada Hodan laakiin laba degmo iska daris oo iska soo horjeedo bay hayeen waxaan soo maray urur dhalinyaro markii la dhaho shaqooyinka yaryar ee degmooyinka ururka dhalinyarada degmada Wadajir waxaan u soo gudbay horta intaan ururka dhalinyarada degmada Wadajir galin waxaan baraka noqday ilaa iyo adiga intii muddo ah iskoolkii aan ku soo wax bartay alqarni kadib waxaan uga sii gudbay iskoolkaas iskool kale isaguna markaa mataankiisa ahaa oo la oran jiray Alanfaal oo isaguna macallin aan ka ahaa waxaan ka qayb noqday ururkii dhalinyarada degmada Wadajir intaada u gudbay intee sanad macallin ahayd waxaan macallin ahaa horta shaqada degmada iyo shaqada waxaan macallinimada waan isku waday 2016kii ilaa 2018kii waan macallin ahaa 2018kii bishii labaad 20keedii waxaan xasuustaa baan jeestada macallinimada dhigay 14kii oo kale waxaan ka mid noqday dhalinyarada degmada Wadajir oo aan ka mid ahaa waliba dhalinyarada ugu firfircoon maxaan ku iraahdaa wadaninimada ay ku adag tahay oo aadka markii iigu horeysayna meel calan oo ka suran yahay ama xarun dawladeeda aan tagay ahayd 2014kii waa 2014kii degmadaas waxaan kala jaan qaaday urur dhalinyaro
halkaas ay ka dhacday meeshaas marka wixii ka dambeeyay waxaa halkaas ka bilaabanaya taariikhdeedii fanka ka bilaabanayso Abshir Gaarane waa ka Abshir darajadiisa aqooneed ilaa intee gaarsiisantay double batch waxaan ahay international relationship and diplomacy public administration jaamacadeyda waa Somerville University oo la wada yaqaan waan rajeynaa inaan master iyo PhD na usii gudbo dadku aad waxay kugu yaqaanaan oo ay kugu barteen qaybta fanka inkastoo aad sheegtay inaad ahayd macallin dad kalena ay jiraan qaybta macallinimo kugu bartay laakiin badanaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho waxay aad kugu yaqaanaan inaad tahay fanaan heeso badan ku soo caanbaxay oo qaarkood heesiis ay guuleysteen oo dabcan heeso dadkii dhan wada dhageystaan noqotay goorma fanka ku soo biirtay oo aad noqotay fanaan heesa fanka horta waxaan ku soo biiray fan markii la dhaho fankan dhibaato badan ka soo maray oo uma aanan helin fursadda hadda ay heleen dhalinyarada mana jeclaan inaan helo waayo fursadda hadda la helay waxa waaye qofka isagoo fanaan ah oo dadka yaqaanin buuna haddana fanaan ahayn waa isagoo fanaan ah oo dadka yaqaanin buuna haddana heesi karin oo bulshada ka hor heesi karin waxaa sababaysa dhalinyaradu famka lacag baa soo gelisay lacag bay qaateen waxay u tageen muusikiistii waxbaa loo gargaraacay kii cod ka qabanay u tageen waa loogu shubay still marka fanaan ma aha weli waayo markii uu hor yimaado bulshada hortooda waxba kama qaadi karo wuxuu awoodaa kaliya in loo shido heeskiisii shalay iyo daraad iyo bilihii hore uu duubay marka anigu go-aankayga wuxuu ahaa ama inaan heeso dadka ka hor heeso ama inaan iska daayaba 2014 baan markii tababarkiisa bilaabay inaan bal microphone-ka gacanta ku qabto waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii markaas bilaabay fanka markay ugu horreysay horta fanka waxay igu dhiirigelin jiray macallinkayga iskoolka maamulahayga iskoolka oo markaas taaburada oo kale markii ardayda wax soo jeedinayaan waxaan aad u jeclaa inaan public speaker-ka inaan wax soo jeediyo inaan maxaan ku iraahdaa dadka suugaanka hor tiriyo inaan ka hor heeso inaan ka hor gabyo waqtigaas aad uma xasuusan karo hadda laakiin heesihii macallimiinta oo kale iyo heesihii markaas ardaynimada aad baan taageeri jiray sidaa la ajligeed marka macallinka wuu i dhiirigelin jiray dhiirigelinta marka ma ahayn dhiirigelinta dadka ay wada yaqaaniin oo niyow fanaan baa noqonaysaa halkaas ka wad ma ahayn wuxuu igu dhiirigelin jiray in fasalada annaga naga sarreeyo anoo laga yaabo inaan dugsi dhexe ahay inuu fasalada dugsiga sare iga waco xafladahooga oo laga casuumo iyadoo ardayda markaas ay la yaabtahay ninkan asagoo dugsi dhexe ah sidee looga casuumi karaa dugsi sare xafladiisa taas marka aan dhiirigelin baan u arkay waadan baan dareemi jiray oo farxad gooni ah bay markaas waa ku farxi jiray in la casuumo laakiin markii dambe abaal xoogaa baan u yara qabtay maadaama aan ahaa qof fanka xiiseeya inuu heese xiiseeyo macnaha oo dadka uu wax soo inaan fanaan noqdo ama noqonayo ma malayn jirinba meeshaas ay ka soo bilaabatay dhiirigelintii kadib waxaan usoo gudbay degmada Wadajir oo aan macallimiin tiro koobana muusikiiste iyo malaxamiiste hal isku ah iyo abwaan markaas ay joogeen oo ay tababari jireen ubaxii ugu horeeyay ee degmadan markii adiga ubaxyadii hore dawladda dhexe kadib ubaxii ugu horeeyay magaalada Muqdisho laga suurageliyay inay shaqeeyaan waxay ahayd degmadii kaliya ee ugu horeysay ee suuragelisay degmada Wadajir ubaxaas macallimiintiisii baa markaa noo sameeyay tababar gooni anagoo dhalinyaro kooxa dhalinyarada markii waa iga sii horeysay degmadii joogtay fankan iyo waxaan waa ku dhex jireen anu gadaal baan uga biiray markaan ku biiray anoo fankan xiiseynay maalin hool dhalinyarada ay ku kulansantahay baa nin saaxiibkeeyo ay Tahliil Maxamuud Guutaale dhahaano aan halkaan uga mahadcelin intuu gacantiisa soo qabtay yiri ninkan waa nin heesaha qaadi yaqaanay bal hal tijaabiyo maalinka iigu horeyso hees in la shido microphone aan qabsaday ahayd heesan baa la shiday aan yara markaas xiiseen jiray oo hooyo ahayd heeska baa qaaday sida baa la yiri warniyo ninkan hala keeno waa loo baahan yahay dhalinyarada boo garab u noqonaya markaas dhalinyaro waxa jirtay in la abaabulo oo fan laga dhigo la rabay laakiin dadkii fankii waa jecel yihiin waa xiiseynayaan
bal dadka la horgeynayo dad ma ku jirin markaas aad u tayo leh marka waxaan ka mid noqday dadkii tayada lahaa oo farkutiris ahaa markaas baa ka mid noqday sidii baa tababarna loo ku bilaabay meeshii heese in loo sameeyo wadaniyaho degmada heese wadaniyaho degmada iyo ku saabsan deegaanka maadaama aan nahay dhalinyaro degmada kasoo baxday weli aanan qaran u gudbin tallaabadii waan waday markaas iguma jirin inaan hees qaado ama hees gooni oo aan leeyahay aan qaado tababarkaas aan ku jirnay oo wada khaylin jirnay sida dad subcinayo oo kale waxaan nahay wadiga dugsiyada oo kulli la wada qaadayo oo kale heesaha maxaan ku rahdaa jamac lagu sameeyo qof gooni ah ma jirin marka oo si gooni ah loo soo saarayo by the way waqtiga markii bilooyin aan joogay systemkii maamulka isbedelay systemka maamulka markuu isbedelay waxaa la keenay degmooyinka guddoomiyayaal dhalinyaro ah guddoomiyayaasha marka la keenay kala wareegi marka aniga waxaan ka yara faa'iidaystay waxaa la igu soo tuuray oo la soo wareejiyay oo i qaadatay koox ka shaqeynaysa markaas si frontier uga shaqeynaysay gobolka Banaadir kooxdii markay i qaadatay maalin maalmaha kamida maadaama systemku uu isbedelay xoogaa dhalinyarada way kala yara daadatay anoo maalin maalmaha kamida gobolka joogaa marka guddoomiyihii dhalinyarada ahaa ee degmada loo soo bedelay meeshii ugu arko orniyo soo ninkii dhalinyarada ah xagga ka tirsan mayd ahaa wuxuu yiri fanka inaan dib u kiciyaan rabaa marka ay imow sidii baan degmadii ugu laabtay wuxuu yiri adoo gobolkaagana joogtid kana shaqaysanaysid meeshaan waa inaa madaxa fanka iyo suugaanta iyo wixii oo dhanba adiga isku noqotaa markaasna kulli firfircoonida iyo howlaha maxaan ku radaa nin maanta leeyahay waa fanaan heesuu sameeyay abwaan ahal abuur waaye ama heesuu leeyahay marka la dhahay ma ahayn laakiin firfircoonidayda iyo aqoonta yareen dadka markaas u yara yeeshay inta meesha ku dhex jiray oo buu markaa igu qaatay sidii baan marka fursad kale ii sii noqotay marka muhiim ma ahayn markaas inaan heeso badan sameysto anoo maxaan ku rahdaa qalab dhameystiran farta la iga saaray xafiis dhano hoolkan ka weyn oo buuxa oo qalaba macallimiinta la yiri ka rabta adiga keenso abwaan ka rabta keenso waan ka faa'iideysan karo markaas laakiin waxaan doorbiday inaan si tababarto wali sida loo heeso sida heesaha ay u kala yaaliin waxa hees la dhaho meel music laga gala ka hor maanan garanaynin inaan fahmo oo noqdo fanaan dhameystiran dadaalkii un adiga Soomaalida waxay dhahdaa dadaalaa ugu gaaraa waa dadaalay intii markaas aan yara ku meel mari karo dad aan ku hor istaagi karo bal dadaalada gaarinay mid haloo tumo bal inta heeskan raba aan dalbado la tumi karo muusikista taan u imaado waan ka yara fahmay oo ka faa'iideystay fursadii 2014 ilaa iyo 16 baan degmada joogay dhalinyaraan soo saarnay oo galbeedka Banaadir aan u bixinay xidigaha galbeedka Banaadir heesaan duubnay telefishinada maxaa ku rahdaa markaas ka shaqeynay magaalada qaarkood noogu yimaadeen meeshii xoogaa adiga waa on dad waxaan noqonay 3 iyo 4 hees ba Allah ka dhigay wax soo saartay anna markaa ma noqon nin si gooni ah wax u soo saartay ma noqono qof mas'uul nawa aha 2016 marka aan meesha ka faaruqay waa marka waxaan istiri bal haye hadda bal hal iyo laba iyo waxa ka gaarto sidaas soo tahayna waxaan ku sii dhexwaday waxbarashadii jaamacadda shaqadii macallinimada fanki wixii oo dhan waa isku waday marka isuma dhiibi jirin marka fanka oo haddii aan isu dhiibo waxbarashadina meesha ka baxaysaa shaqadina meesha ka baxaysaa firfircoonidii iyo wanaagii iyo qofnimadina meesha ka baxaysaa marka khulaasatul qawl marka kadib waxaan u soo go'ay shaqadii iskoolka iyo waxbarashadii iyo tii volunteerka gobolka aan ugu shaqeynayna anagoo ah kooxda gobolka Banaadir markaas koox la dhahay markaas Shamsuddin laakiin waqtiga dambe xilliga madaale loo magaceeda lagu bedelay kooxda gobolka Banaadir oo ilaa hadda shaqeysa ilaa 16 ilaa 18 marka waxaan isku waday shaqadii iskoolka shaqadii caadiga ahayd iyo tii maxaan ku raahdaa waxbarashadii 18 bishii labaad shaqadii iskoolka waa joojiyay waxaan noqonay mushaariyan noqonay qofka inuu xarun kale ka shaqeeyo waa laga mamnuucay shaqadu soo galaa shaqada markuu soo gala laba uga baxa inuu xanuunsan yahay oo uu fasax ku baxo iyo inuu waxbarasho u baxay waa la ogolaa qofka inuu wax barto ana waa la ogolaa inaan wax barto warqadihii jaamacadaha oo cadeymahan u geynay ay qaadanayeen
bal certificate ay maxaan ku rahdaa igu shaqo galiyeen oo ay haysteen marka waxay ii ogolaadeen inaan jaamacadeedana wato shaqadeedana aan imaado that's why marka shaqadii iskoolka aan u gabagabeeyey oo u xiray kadib 18 bishii 7 guud ahaanba jaamacadihii ay soo gabagaboobay dhamaaday marka shaqadii aan kali noqday fankii gobolka Banaadir waaxda arrimaha bulshada ay maxaan ku rahdaa qayb ka ahaayeen ilaa iyo 2020 marka waxaan isla xarbinaynay on kooxda gobolka Banaadir dabcan heestii kugu horeysay ee aad oran karto waxay noqotay heesta lagu aqoonsado lagu yiraahdo alfanaan Abshir Gaarane waa tuma waa kala tahay oo laba aan kala qaadaynaa markii la yiraahdo heeskaagii kugu horeeyay heeskaagii igu horeeyay dadku ma yaqaanin markii la yiraahdo heeskaagii kugu horeeyay dadka kugu bartaan marka waa hees aan aniga gabar walaal aan nahay ayaan wadani aan wada qaadno nafaqa la yiraahdo taa waan ku tagi doonaa oo bal heeskaygii ugu horeeyay ma aha heestii kugu horeysay de ayada faal naga sii hadii aad nagu luqay kartan waa soo dhaweyn lahayd ama ahayd 14 laftarkiisa ahaydoo si fiican uma xasuusto laakiin heeskaas waxaan xasuustaa heeskaygii igu horeeyay baa eray in la sameeyo oo la xameeyo xiisa goonina uu igu lahaa musiga waxa ay tumay ninay Abuukar Xaaji Cabdiqaadir Abuukar yar dhaano fanaaniinta waa bari ka tirsan aad baa ugu mahad celinaya laxanka waxa iska lahaa Xasan Cabdu Barroon inay dhaano macallimiintii ugu horeysay tababarka iga qaaday asagana aan aad ugu mahad celinay kooxda horseed ka tirsan ereyada waxa iska lahaa Cawil Cagud Abwaan Cawil oo isagana horseed ka tirsan oo aan aad ugu mahad celinayo marka heeskaas waxa la dhihi jiray horta abwaanka qisadiisa lahaa iyo waxay ku timid baa aniga ma aanan garanay laakiin waa layla gaclooday on in ma firfircoon oo heesaha kooxda loo dhiibay maxaan ku rahaa hadiiba xifdiyo markii maanta heesaha way adag yihiin marka dhibaa laga maraa ulama sii jirto marka hees kooxeed oo jamac wadani ah heesahan caadiga oo jaceelka la dhigaysan 4 daqiiqo 5 daqiiqo socdaan kuwaaba waxay iska socdaan 15 daqiiqo kuwa 10 daqiiqo iska socda rafaada laga maraa marka xifdintooda marka waxaan ahaa adiga qofka maanta markii wixii la yara xifdiyo waa la tagaa hadana bari waa la iimaana hala soo xasuustaa leey wixii shalay intaan la daarin marka waa duuban yihiin mugti waxa la rabaa marka qayb inta loo daari lahaa qof soo xasuusta marka dad xoogaa waxaan ku jira dadka markii wax la iloobi rabo soo rida ugu fahan karo marka heeskaas horta sidaas uu igu soo galay oo firfircoonideedan buu igu soo galay hees anu aan dalbadayna ma ahayn oo waa uga mahad celinaa abwaankii iyo mulxankii iyo muusikiistii intaba oo xataa shuruudana igu xiran barigaas oo fanku waa ognahay muusikiistayaasha dadka shuruudo badan ay ku xiraan mulxanka shuruudo ku xiraa dadka lacagaada maxaan ku raahdaa adduunyada lacaga waashay marka anu waaga shuruud layguma xirin fankan sidiisaba waxaan ku soo galay sir naseexa ah oo dadkii fanaaniinta ahaa aniga fankeyga shaqo ku lahaa luqba ku leh haba yaraadaan luq ku leh keyga aniga iguma aanay xirin wax shuruuda markaas waxa la dhihi jiray wanaagu qalbigu rabay waxaan ka xasuustaa wanaagu qalbigu rabay ay naftu raadiso aday kugu raali tahay rasmi iyo been jacayl aanon ra'yigaygu qabin adaa iga rarido waa ku sii soconaynaa dhanka fanka weli heystan hadda aad sheegtay inaad oran karto midii lagu aqoonsaday oo aad ku soo canbaxdo weeyaan aad la qaada gabadha kale aad sheegaysa fanaanada ayaan bal ayadana wax naga xasuusiyo dabcan cidda leh ereyada sida lagu dhiibay iyo taariikhdeedaba iyo dad nagu luuqeyn kartaba niyahow heeskaas waa ku riyoodaaba sidee dadku moogtahay waxaa la yiri magaca iyo musiibada maalin bay baxaan dadku inta ay taqaana markay uu ku soo dhaco Abshir Gaarane markuu ku soo dhaco heesihiisa markii ay dhahaan heeska ugu horeeyo ku soo dhacay kaas weey meel walba tagana waxa la leeyahay nafaqo markii qof isugu aniga heeska qofka isugu ay yaqaana maba laga yaabo inuu mid kala dalbado nafaqo dadka marka waxa ku xiraa mararka qaar kood gabadhii la qaadaysa lama socotay waa ku daalay heeska ama live u qaad ama playback u qaad
ama maxaan ku irahdaa muusig la-aan ku qaad marka heeskaas horta aad waxaan ugu mahadcelinaya heeskaas oo kaalin libaax la ka qaatay inaan qaadnana suuro geliyey aniga gabadhaas heeskaas berigaan qaadaynay taariikhda ay nagu soo gashay heeskaas sida fudud ay nagu soo gashay iyo sida ay u cuslaatay isma laha shamso cali macalin abwaanad waaye shamso cali macalin waa agaasimaha fanka iyo suugaanta gobolka banaadir ba horta ma hadda koowaad iskale oo suuro gelisay inaan heeskaas qaadno noo hibeysay waxaa ma hadda labaad iskale oo aan 2 iyo 3 iyo 4 u mahad celinayaa abwaankii ereyada iyo laxanka lahaa abwaankaa dheeri odayga oo ereyada iyo laxanka lahaa oo aan aad waad mahadsantaha adeer aan u leeyahay heeskaas iyo heese ka dambeeyeyna ii sameeyey ba horta labadaas qof baa heeskaas noo suuro geliyey inaan ani ayaan ku luuqayno heeskii waan maxaan ku rahdaa waana la siiyey yaa kusoo baxayaa la yiri marka waxaa la yiri gaarniya ayaan baa kusoo baxay sidii baa naloo ku dhiibay waxaan xasuustaa siiro fududna waa kusoo tumay subxaayan baan u tagnay maalin ayaan baan wacay ayaan ma diyaarsan tahay ha ayna keen subxaayan baan u tagnay maalino qolo kale muusig u tumay markaasuu yiri qoladii kale war hal hada wiilkani gabdhan idin ka hormarna waa wax yar oo basiida hay waaya bes de qolo ayaga sida maxaan ku rahdaa caawa iyo ilaa ibris la joogayaan oo howlo badan ay u yaalin bay ahaayeen anagu baan loo dhaxgeliyay 2 saacadood unadi meeshan ba waana loo tumay on sida lagu tumo heesku waa soo qaadanay ani ayaan waa soo baxnay waxa xasuusta ilaa iyo muddo waa soo lugeen intaan meel bajaaj laga raacaa keelno marka waa isweydiinay ayaan heeska ma okay ba okay waa heeska waa wallahi waa dhag waa meel baa isaartay may wallahi adaa meel isaar waa isku yar turturnay macna markaas waxa ku tusay midkaanba midka kale midkaanba codkiisa kuma qanacsana wuxuu isleeyahay ani ama wax qaldan yihiin fanaankan sidiisaba codkiisa ma ku qanacaba ama ha fiicnaado ama ayuuna fiicnaanin kuma qanacaba because waa asaga yaa qaaday mugti kaliya waxa feedback soo celin karo bulshada marka heeskaas sidaas oo ku baxay wuxuuna soo baxay heeskaas 17 wey 2017 soo baxay dadka waxay arkeen 2018 dadka ugu horeeyay malayna heeska kala ma haro heeska dadka hal qeyb ka yaqaan laakiin inuu kala haro ma jecel heeska marka qaada inuu ku wada luuqayaan jecel sideeda markii hees la qaado qeyb un baa noqotay hit ama kacdo ha laakiin heeska lagu igacmay leedahay dadka intay rabaan ayaga qaataano marka heeska salkaas oo ka baxay heeska wuxuu ahaa heeskan horta abwaanka markuu sameynayay Nairobi ku sameeyay wiili gabar roosana loo sameeyay sida sheekadii ugu soo gaartay marka annaga markii Muqdisho leeyahay Muqdisho u bedelnay ila Muqdisho aan joognaa hadda moogta Muqdisho aan bedelnay marka Nairobi uu isaga Nairobi kala soo baxay uu leeyahay gabadha nuxurkii dadnimaadiyo namun lahi daraacay nasab mudan amaano naxli laga fogeeyo afaceeda ku nogol dhamaan Nairobi kala soo baxay neecaw ideeqdiyo naftu quruxay jamaatay afaqadi kalgacalkee sawjadaydii noqotay nasiibkay haddaan ku helayay niyada farax baad u tahay indhaha nuur baad u tahay wadnaha nafaqaad u tahay qalbigaad naxariis u tahay naftana raaxaad u tahay heblayoy nasashaad u tahay amidaan ku nagaanayn nolosha isku waarilayn halkaas ay ka baxday heeska hees kale waxa jirta la yiraahdo Layla Orideyda ayadana waxay ka mid tahay heesaha dabcan la xasuusan karo markii gaaran soo heeskaas heesahayga kuwaan ugu jeclahay heesaha aan heeskaas Layla inafaqo iyo hees kale in sagana nabad ku war la yiraahdo waa heesaha ugu badan oo heesahayga aan aad u jeclahay ka soo iyaga soo yihiino tan abwaankana wuxuu u sameeyo dhacdo markaas joogto u sameeyay tanna ayadana waxbaan u sameeyo tan erayadeedii iyo macalxankeedii macalluuqdeeda ana iska leh Laylada tan kalena sidoo kale on qisay ku timid ayadana marka heesaha kale waxa laga yaabaa inta kale in la iskaga kaydiyo on sil qaad on ha codku inaan lahaa xog badan aan keen laakiin saddexdan waa saddex heeso
Leila horta waa 2018 2018 iyo 19 inta dhexeysa waaye nin saaxiibkay oo halkaan aan ka salaamayaa aan rajeynayo inuu wasiiradii hore ee Hirshabelle uu ka tirsanaa still inuu ka tirsan yahay wali aanan maqlin xilka qaadistiisa aan wali maqal Xuseen Maxamuud Tuuryare baan horta heeskaas waxaan u sameeyay gabadhiisa iyo caruurtiisa gabadhiisa asaga oo qaba macnaha iyo caruurtii u dhashay xaaskiisa iyo caruurtii u dhashay baan u sameeyay heeskaas ereyada ana iska lahaa laxankan ana lahaa luqadan ana lahaa muusigana Abuukar Xaaji Cabdiqaadir buu ahaa Leylay oridayday lamanti naftayday adiga laxadkiyo kula laaban beerko ladii waa hurdada oo laqi waayay oonto adigaan kulaasimay adigaan kulaasimay adan lahashahaygaay ilaahiye ku jecelahay adan lama ubaxlo leedkugu afuufiyo libta ku diyaarsha reerkeena uladay ulad lagu riyaaqana allaga beer dhexdeeno hobaysay mongoorti lay dhalayay hooyaale hobay sunduus lay bogaadiyay hooyaale hobay axlaam lay gardaadiyay hooyaale hobay farxad baan haleelo hooyaale halkaasay ka baxday heeskaas